shabeelka iyo haramcadku waa laba ka mid ah xayawaanaadka wax ugaarsada waxay ka tirsan yihiin qaybta loo yaqaano afka carabiga as-sanuuriyaad fasiiladaasi oo ah mid ka mid ah kooxaha ka farcama ee raacsan naasleyda iyo lafdhabarleyda midaasi oo ay ka mid yihiin bisadaha ama mukulaalaha iyo xayawaanaadka xajmiga weyn ee kale haddadan la joogo waxaa la sheegaa inay ka kooban yihiin 36 nooc waxayna ku nool yihiin xayawaanaadkan isku haybta ah dhammaan caalamka marka laga reebo labada qaaradood ee kala ah Antarctica iyo Australia iyadoona labadaasi qaaradood laga helin wax noocaan oo ka mid ah xayawaanadan xajmiga xayawaanadan sanuuriyaadka ayaa kala sareeya tan ugu yari waa bisada ama mukulaasha guryaha nala joogta ama magaalo jooga waxaana ugu weyn libaaxyada degan buuraha iyo keymaha Afrika xayawaanadan ayaa ka midaysan awoodda sareysa ee u suuragelinaysa ugaarashada iyo toogashada hadafka loo socdo waxayna ku hubaysan yihiin cidiyaha lisa afna badan cidiyahaasi oo ay ku duubtaan ama ay ku qariyaan lugaha hoostooda xilliga aan ugaarta lagu jirin ama loo baahnayn adeegsigooda sanuuriyaadka ayaa ka kooban noocyo badanaana waxaa lagu naanaysaa bisadaha waaweyn alqitatul kabiira picatis waxaa ugu muhiimsan xayawaanadan shabeelka haramcadka libaaxa guumayska iyo mukulaal duureedka markaan intaas ka soo gudubno aan u dhaadhacno mowduuca barnaamijka oo ah farqiga u dhaxeeya haramcadka iyo shabeelka labadan xayawaan ayaa aad isugu eg waana laba xayawaan oo caata ah haddana gaaban xagga dhismaha ay isaga eg yihiin marka loo eego xayawaanada kale ee ugaarsada waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu yaryar sida libaaxyada oo tartanan caadi ahayn kala dhaxeeyo haramcadyada marka la isla joogo hal mandiqad xayawaanka haramcadka ayaa ah mid aad u dheereeya isagoo kaalinta koobaadna fadhiya xayawaanada naasleyda ah xagga orodka inkastoo xayawaankani dabargo halis u yahay shabeelka iyo haramcadka ayaa tilmaamo badan iskaga eg ilaa ay ku adkaatay dad badan kala saaridda labadan xayawaan ilaa dadka ku takhasusay mooye iyadoona dad badan aaminsan yihiin in haramcadku yahay dhalay iska dhaleen libaax iyo shabeel magaca hadda loogu yeero shabeelka waa laabad asal ahaanna waxaa qaas u ahaa haramcadka shabeelka ayaana la siiyey kadib markay culimmadu ogaadeen inay yihiin laba nooc oo kala duwan haddaba sida ugu fudud ee lagu kala saari kara shabeelka iyo haramcadka ayaa ah inay laba deegaan oo kala duwan kala degaan noocyo kala duwan oo xayawaanada ahna way kala ugaartaan qaabab kala duwanna way u kala nool yihiin iyadoo shabeelku uu awood u leeyahay soo saaridda cod xoog badan jibis adagna lagu dheehay oo uu ka cabsi gelin karo cadowgiisa iyo kuwa la tartama halka haramcadku soo saari karo cod hooseeya oo shaabaha ama u eg kan bisadaha guryaha nala jooga si guud marka la isbarbar dhigo labadan xayawaan waa shabeelka iyo haramcadke waxaa soo baxaya farqiga u dhaxeeya oo ah mid aad loo dareemi karo farqi ayaa u dhaxeeya xagga dhismaha sida ugu fudud aad ku dareemi kartana waa xagga dhibcaha haramcadka waxaa ku daboolan dhibco madmadow oo yaryar oo u kala qaybsan dhammaan qaybaha jirkiisa iyagoona isku dhowdhow haddana nidaamsan oo isla eg halka shabeelku leeyahay wareegyo aan nidaamsanayn oo lagu shaabihi karo ubaxa waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha lagu kala saari karo madaxa shabeelku waa mid weyn lugihiisuna waa gaagaaban yihiin balse haramcadka madaxiisu waa mid yar marka loo eego qaybaha jirkiisa waana waxa u suuragelinaya inuu aad u dheereeyo xilliga orodka halka ay ka furmaan indhihiisu kor ayay u qaadan yihiin iyagoona u qaadan xagga madaxa lugihiisuna waa dheer yihiin marka la barbar dhigo shabeelka xagga orodka shabeelkuba ma liito waa orod miiran isagoona ku orda awooddiisa inta ay la-eg tahay wuxuuna jari karaa saacaddii 90 kilomitir meesha uu shabeelku ku ordo wuxuu uga tagaa raadkiisa oo wareegsan xajmigiisuna weyn yahay iyadoona lugdhigiisu la eg yahay 70 ilaa 90 milimitir balse haramcadku raadkiisu waa mid ka luga yar shabeelka isagoona cagta dhulka dhiga 65 ilaa 85 milimitir cidiyihiisa ayaana ka muuqanaya meesha uu ku orday sababtuna waxay tahay haramcadku ma awoodo inuu cidiyihiisa ku laabo lugihiisa sida ay sameeyaanba xayawaanada kale ee la nooca ah haramcadku waa ka caataysan yahay shabeelka sidoo kalena waa ka dhabar dheer yahay shabeelka jirkiisuna aad ayuu caato u yahay xagga kelida laabtiisuna waa mid aad u ciriiri ah halka shabeelku leeyahay jir dheer iyo xubno xajmi weyn miisaanka haramcadka ayaa lagu qiyaasaa 35 ilaa 72 kilogram halka miisaanka shabeelku dhaafi karo 90 kilogram haramcadku wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado mandiqooyinka hooseeya sida buuraha safaanada furan isagoona isku qariya cawska iyo ubaxyada dhaadheer si uu kamin ugu dhigo ugaartiisa shabeelkuse wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado keymaha iyo meelaha geedaha badan sidoo kale wuxuu degaa meelaha buuraleyda intaas waa farqiga labadan xayawaan
ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddaad ku cusub tahay kanaalka ilays fadlan ugu soo biir oo sii gaarsii asxaabtaada ugu yaraan hal qof. fii amaanillah.